wargeyska Newsweek oo ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa warbixin ka diyaariyay go'aankii ay dowladda Soomaaliya ku mamnuucday jaadkii la geyn jiray dalka Soomaaliya ee ka imaan jiray Soomaaliya waddanka ay dariska yihiin ee Kenya. Wargeysku waxa uu ku bilaabay jaadka ama miiraha ayaa loo dhoofiyaa dalka Soomaaliya waxaase uu uga yimaadaa dalalka Kenya iyo Ethiopia. Caleenta jaadka ayaa wargeysku uu sheegay inay qofka siiso awood dheeri ah marka uu calaashado. Wargeyska ayaa intaas ku daray in sanadkii 2014 dalka Britain laga mamnuucay jaadka imaan jiray. Wargeysku waxa uu leeyahay joojinta ku-meelgaarka ee qaadka ayay dowladda Soomaaliya ku dhawaaqday maalintii Isniinta ahayd kadib markii wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Cali Axmed Jaamac Jangeli uu warbaahinta la hadlay. Inkastoo wasiirku aanu shaac ka qaadin sababta xilligaasi uu warbaahinta la hadlayay ma uu sheegin. Go'aankaasi dowladda ka soo baxay ayaa waxaa ka hor yimid sida wargeysku uu xusay maamulada ka jira dalka qaarkood sida maamulka Puntland. Afhayeen u hadlay Puntland ayaa sheegay in go'aanka dowladdu aanu khusaynin Puntland. Sidoo kale waxaa go'aankaasi dhalishay Somaliland. Wargeyska ayaa sheegay in inkastoo jaadku uu qofka siiyo awood ayaa haddana waxaa jira dhibaatooyin cunustiisa laga dhaxlo, waxaana dhibaatooyinkaas ka mid ah hurdo la'aanta, dhiigkarka iyo walwal. Hay'adda WHO ma aanay weli u tixgelin qaadka inuu yahay maandooriye halis ah, hase yeeshee Britain waxa ay ku dartay maandooriyayaasha oo waxa ay u aragtaa in dembi lagu mutaysan karo. Dowladda Britain ayaa sanad kasta cashuur ahaan ka heli jirtay jaadkii iman jiray Britain lacag gaaraysa 3.3 milyan oo dollar. Kadibna waxa ay cadaadis kala kulantay jaaliyadda Soomaaliyeed kuwaasi oo ku dooday in jaadku uu burbur ku yahay qoysaska Soomaaliyeed iyo in Soomaalidu ay dhex galaan bulshada inteeda kale. Jaadka ayaa laga mamnuucay dalal kale oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Canada iyo Jarmalka. Dhinaca kale wargeyska Daily Nation ee ka soo baxay Nairobi ayaa sheegay in 5 dayuuradood oo sida qaadka loo yaqaano miiraha ay ku xayiran yihiin magaalada Nairobi, waxaana qiimaha jaadkaasi uu dhan yahay 60 milyan oo shilinka Kenya ah kadib markii Soomaaliya ay amartay joojinta dayuuradaha qaadka ka keeni jiray dalka Kenya. Wargeysku waxa uu leeyahay afhayeen u hadlay dalladda ganacsatada jaadka oo lagu magacaabo Kimati Manjuri waxa uu sheegay in dayuurado kale oo sida jaadkaasi in ay ka baxeen Nairobi iyagoo ku sii jeeda Somaliland. Wargeyska ayaa sidoo kale ka hadlay in wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Cali Axmed Jaamac Jangeli uu si adag u sheegay in diyuuradii ku soo xadgudubtay hawada Soomaaliya in ay tallaabo ka qaadi doonaan. Waraysi uu siiyey wargeyska Daily Nation afhayeenka ganacsatada jaadka miiraha Mr. Munjuri ayaa waxa uu ku sheegay dhankiisa in khasaaruhu uu intaasi ka badan lahaa haddii aanay ganacsatadu ka warhayn joojinta qaadka Soomaaliya. Afhayeenka oo sii hadlayay ayaa yidhi waxaanu ka fikiraynaa in aanu isticmaalno garoomo kale oo ku yaala Galmudug, Somaliland iyo Puntland. Afhayeenku waxa uu intaas ku daray in sidoo kale ay jiraan dad kale oo ku xayiran xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee Islii magaalada Nairobi. Wargeyska Newsweek ee ka soo baxa dalkan Mareykanka ayaa warbixin gaar ah ka diyaariyay in qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool Dadaab ee doonaya inay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya ay wajahayaan khataro kala duwan. Wargeysku waxa uu ku bilaabay warbixinta xerada Dadaab waa meel kulul, boodh badan isla markaana ay dabayli ka jirto. Xeraduna waxa ay soo furnayd sida uu wargeysku sheegay tan iyo 90-meeyadii. Si kasta oo ay ahaataba bishii May wixii ka dambeeyey waxaa dadka qaxootiga ah ee gaaraya 340,000 oo badankood ay Soomaali yihiin la soo gudboonaaday walwal hor leh kadib markii madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ku dhawaaqay in xeradaasi Dadaab albaabada la isugu dhufan doono sanadka 2016. Dhawaaqista kadib dowladda Kenya iyo hay'adda qaxootiga ee UNHCR waxa ay si wada jira u dardargeliyeen sidii qaxootiga dib ugu noqonaya Soomaaliya loo siin lahaa lacag gacan qabsi ah oo qofku marka uu baxayo la siinayo. Lacagaasi ayaa ah in marka qofku ka tegayo xerada la siiyo $200, sidoo kale la siiyo lacag kale oo iyana $200 ah marka uu tago Soomaaliya. Sidoo kale waxaa qorshaha qayb ka ahaa in qofka la siiyo raashin ku filan bilo iyo agabka guryaha, hase yeeshee weli ma cadda in ballanqaadyadani ay yihiin kuwo sidoodii u dhacay. Qaxootiga diida in ay dib ugu noqdaan dalka Soomaaliya waxaa la faray in aysan helaynin ogolaansho ah inay sii joogaan xerada iyadoo arrimaha oo dhan ay qayb ka yihiin heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee dhigayay dib u celinta qaxootiga iskood ugu laabanaya dalka Soomaaliya. Shaqaalaha ka tirsan hay'adda xuquuqul insaanka ee Human Rights Watch ayaa tegay xerada Dadaab intii u dhaxaysay 17 iyo 24 bisha si ay ugala sheekaystaan qaxootiga walwalka la soo darsay. Qaxootiga qaarkood ayaa uu sheegay hay'addan in ay doonayaan in dib ay ugu noqdaan Soomaaliya halka kuwa kalena ay sheegeen inay jecel yihiin inay joogaan xerada. Hay'addu waxa ay sheegtay in dadka doonaya inay Soomaaliya tagaan iyo kuwa doonaya in ay sii joogaan Dadaab ay ka siman yihiin cabsida iyo walwalka. Qaxootiga ayaa weydiinayay hay'adda maxaa dhici doona haddii aanan ogolaan in aan qaadano lacagaha
iyo kaalmada naloo fidinaya ee ah in aan dib ugu noqonno Soomaaliya. Waxaa sidoo kale ay weydiinayeen hay'adda su'aasha ah, ma waxaana lagu guri doonaa baabuurta xamuulka oo qasab ayaana lagu celinayaa dhammaadka sanadkan. intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Xuseen Barre Aadan iyo Jaamac Buulla Jaamac. waxaana barnaamijka magaalada London kusoo diyaariyey wariyaha VOA da Ridwaan Xaaji Cabdiwali.